بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مستر استراليا مقاعد اللي يراهدو هل كان وحن كسر بحنا يا أما شركة عن أفرا يا مانتا أنا مستر استراليا ونسوا مالية دا وحن دون يا وحن نشرحنا هاي حركة الصومالية ما نشرحنا بدلنا تلك واكم مغنا مدادو هدي الجارسة أدو سداد بقول السنة أدو لا تدور بقول السنة لوك واكم مغنا ما دام الحمد لله ما تعني مدرك أن دون يدور الشدة الصومالية كقريب إن معناها شدة الصومالية إن ستاعو ما دلك codkayga anu waa gadanaya ummadda Soomaaliyeed waxaan sheegayaa codkayga anu waa gadanaya ninka ummadda Soomaaliyeed ugu ashhaadada fara badan bana ummadda Soomaaliyeed codkayga anu waa gadanaya dalkana waxa uu qaban maayo qof walba soo doono baan ka dhigayaa dalka waxaan ku yiri qof walba soo doono dadka caburinta tuubka haddii ilaahay ku roon yahay qof walba waxa laga dhigayaa dadka wax la yiraahdo free day oo ma garanaysaa qofku soo doono ama sida uu jecel yahay in loo dhaqmo kantaroolada in dadka laga qaado dalka anigu in badan baan dalka ka maqnaa maadaama codkayga aan gadanayo lacagtaydu meel waa taalaa lacagtayda waxaan ahay in maanta adduunyada korkeeda ku nool oo iga lacag badan wadanka ma joogo codkaygana waa gadanaya dalkana waxa uu qaban maayo talabaad waxaan inii sheegayaa dalka in macnaha ay ku loolumayaan rag fara badan si ahaanteedana waxbarashadu waxay u baahan tahay waxa ma garanaysaa aqoontu waxay u baahan tahay talabaad waxaan leeyahay musharaxiinta oo dhan guriga ku soo wada kareen ana waxbarashada waxa weeye waxbarashada jaamacadaha guriga kaga wada baxeen inay markaa maanta dadkaas ilo loolamaan oo ay doonayaan dalka inay dalka wax u qabtaan ma wax dhici karaba dadkaas macnaha ma waxay doonayaan hadeer in dalka ay burburiyaan mise inay dadka ay wax u qabtaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dadka macnaha doorashada Soomaaliya u sharaxan waxaan leeyahay number 2 waxaan leeyahay qodobka labaad waxaan leeyahay Kenya oo dhan waxaan u cagtan la dhacaya ummadda Soomaaliyeed haday doorato Kenya cagtan la dhacaya waxna waa xirxiraya waxna xabsiyada waxna waa taxaabaya wadamada kale taxaabaya maadaama aan halka hadii la dhigo wadanka waxan marinaya anu badda waa rinjiyeynaya hadii ilaahay maayo dhulka manaafacaadkiina ku jiro waa soo saaraya habar dambe oo dhiglaan u dhimanaysa wadanka kama dhacayso hadii aniga halka la dhigo talabaad waxaan leeyahay Kenya anigu waxaan ka qaadi lahaa talaabo sharci ah waan ka qaadi lahaa Kenya ta saddexaad baan ka hadlayaa dalka nina waa lugooyaan nina waxba u qabtaa anigu waa soo shaac saaraya shahaadooyinkayga sitaa codkayga waa gadanaya nina anigu waxa weeye in u dhuuman maayo marka waxaan leeyahay oo kale musharax adiga ma waxaan ka socdaa ilaacad dadka walwaalan ee ka soo gashaa fahmiyada daruraha su'aal baa ku weydiinaa su'aasha waxay tahay waa ka jawaabi kartaa musharaxiinta waa xildhibaanada codkooda waan gadanayaa baa tiri haye maadaama xildhibaanada codka geynsa ala xildhibaan inta baad siisanaysaa lacag intee baad siisanaysaa su'aasha ku weydiiyay waa ala musharax intee baad lacag siisanaysaa xildhibaanada aniga la samaysaa aniga xildhibaano la yiraahdo oo aan lacagtaas aan siisanayo xildhibaanada ay kala hadasheen xildhibaanada hadii aan inay ka jawaabo waxaan leeyahay su'aalaha aan weydiinaysa fududa aniga joornaalada adduunka caalamada waxna la ka weydiin jiray su'aalaha noocaas oo kale meelahan oo kale ama golayaasha lama keeno ta adiga saatay yeelkadeeda waa kaaga jawaabaya anu xildhibaanada ay kala hadashay heer xitaa waxaan ka gaarayaa wili aabihi aan ka iibsado aan gato waa u shubaya miiska u saaraya waa xildhibaanada
waxyaalaha kale oo jaranjarooyinka oo dee hooseeyana ayada dee waad garanaysaan dee nin iyo ra'yigiisa waxaa kaloo aan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ay doortaan baa doonaya hadday doonayaan dalka inaan wax uga qabto musharax maxay tahay su'aal kale aan ku weydiinaynaa maadaama aad musharax lacag badan tahay xayawaanada yaryar sida quraanjada jinaca dhuxunka reebka maxay ahayd kuwa durjoogta ruwaayada iyo libaaxyada hangaraaraca maxaa kaaga qorshaysan iyaga waxaa iga qorshaysan waxyaalaha baad su'aal ga weydiisay su'aasha kaa iri wax allaale wixii cayayaan horta wax allaale wixii cayayaan Soomaaliya markii aan kasoo degay way soo wada booqdeen waxaan leeyahay oo kale cayayaanada mid walba bartiisa ku dhirgaya meel walba ceel baan ugu qodayaa riigag baan meel walba u saarayaa cayayaankaas oo dhan ilaa iyo waraheer waxay ka gaaraysaa waraabayaasha aan ceelal u sameeyo riigaga ay ka cabaan badda aad aragteen waa midab kale aan ka dhigayaa adduunka xagga kale baan ka rogayaa midab kale oo aan arki jirin taariikhda xitaa haddii aad maqasheen maxaad siyaad bari baan musharax master Australia musharax aad baan horta maxay ahayd ku salaaminaa mar saddexaad maxay ahayd maxaa kaa qorshaysan musharax master Australia aad baad mahadsan tahay su'aashan ku weydiinay kale waxay tahay maxay ahayd dhalinyarada waxay ka cabanayaan guurlaan baa laga cabanayaa guurarkii baa qaali noqday ma fahmaysaa marka maxaa kaa qorshaysan dhalinyarada iskaabulada ee Soomaaliyeed inaad wax u qabatid maxaa kaa qorshaysan waxaa iga qorshaysan waa su'aal fiican horta waxaa iga qorshaysan xildhibaan kasta oo codkay siiya aniga codka igu shuba familka ama reeraha uu kasoo jeedo ilaa iyo 10,000 oo dhalinyaro ah waxyaalaha guurka waxyaalaan keenaya iskaabulanimada anaa ka saaraya anaa ka bixinaya waxaan u sameynayaa holol waaweyn sidii jaamacadaha ay uga baxaan sidii magaranaysaa fadhiga oo kale sidii hurdadii oo kale sidii hoteeladii ay magaranaysaa ay ka cunteyn lahaayeen oo kale tallaabooyin noocaas oo kale ah baan u qaadaya haddii macnaha duruufo noocaan maadaama ay jiraan oo waddanka ay ka jiraan marka horta waan u hambalyeynaya hambalyana waan u diraya